recharge garaysan karaan ama ay ku hadalka iyo internetka labadaba kaga shuban karaan mobilkooda isagoo ah shilin Somaliland zaad shilin Somaliland inay kaga shuban karaan halkii awal kaliya uu dollar ahaa ay dadku markay u baahdaan hadal ama internet ay isticmaali jireen qaybta dollarka oo kaliya waxaanu maanta ku soo kordhinay oo nudaha furaynaa adeega zaad shilin Somaliland recharge oo qof kasta oo macmiil ah oo mobilkiisa shilinku ugu jira wuxuu awood u leeyahay inuu ku iibsado hadal ama internet marba midku u baahan yahay dhinaca qofka macmiilkiina lacagta ugu jirta ee ka yar $100 ee zaadkiisa ugu jirta markuu doono ayuu kala bixi karaa counterada Telesom wax ka expire garoobayo si ka noqonayna maaha hadduu maqan yahay hadduu joogaba lacagtiisii waxay ugu jirtaa accountkiisii halkiisaas u taala wuu bedelan karaa wuu la bixi karaa waxa weeye bangigiisu u dhigan karaa wuu kala soo bixi karaa dhinaca kale xawaaladii dibadda lagu soo diri jiray macaamiisha dadkeena danyarta dibadda lacagaha lagu soo diri jiray wixii $100 ka yar sideedii bay ahaan doontaa kaliya qofka waxa iska bedeli doona marka lacagta $100 ka yar loo soo diro qof kalena uma diri karo waxna kuma iibsan karo waxaan jecelahay halkan inaan ugu mahad celiyo macaamiisha shirkadda kalsoonida iyo taageerada mar walba ay shirkadda la barbar taagan yihiin waxa kale oo ugu bushaareynayna sidii ay nooga barteen inaanu mar walba u keeni doono hal abuuris cusub iyo adeeg hufan oo raali geliya kaas oo wax weyn ka tari doona dhaqdhaqaaqeena ganacsi iyo kobaca ganacsi ee dalka بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك وزارة isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiweli Cabdilaahi gudoomiyaha banka dhexe Maxamed Cabdi Ibraahim gudoomiyaha shirkadda Telesom Cabdikariin Maxamed Iid xubnaha agaasinka ama board of directors shirkadda Telesom ee halkan fadhiya Cabdinaasir Cabdirashiid Xadeed iyo saraakiisha sarsare ee shirkadda Telesom xubnaha saxaafadda halkan inala jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa farxad inoo wada ah danahay banka dhexe iyo shirkadda Telesom in maanta halkan aynu isugu nimaadno oo aynu ku daahfurno adeeg bulshaweynta Jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn u taraya dhaqaalaha dalkan wax ku dhinay waxaanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa shirkadda Telesom sidii Cabdiwahaab afayeenka shirkaddu ama agaasimaha xiriirka dadweynaha ee shirkaddu sheegay horana ay shirkaddu madaxdeedu af iyo qoraalba ay u soo gudbiyeen ee ahayd inay si buuxda u taageereen go'aamadii xukuumadda shirkadaha waxa ka khuseeyay 3 qodob in shirkadaha waaweyn ee leh bangiyadu ay joojiyaan isku beddelka lacagaha taa way joojiyeen si wanaagsan uga jawaabeen 2 in shirkadda Telesom iyo daabshiil adeegyada saad iyo dahab leh ay $100 wixii ka yar ay ka joojiyaan in 2 qof isu diraan isla markaana ay lagu iibsado wixii ka yar dhinaca dollarka taas oo ku eg 13 bisha saddexaad ee 2018 taasina way saasay ku hirgelaysaa in ku shubashada shilinka Soomaaliland xaddigiisa kor loo qaado taana way fuliyeenba oo imika waxaan ognahay in lacag fara badan ay ganacsatadu isugu diraan insha Allah bidnillaahi karimna taladeeda iyo arrinkeeda istii laga yeelayo waa la isaga iman doonaa maanta tan aynu joogno ee adeegan waxaan ku dhahdaay in mobilada gacanta laga shubto shilinka Soomaaliland dhexdiisa waa arrin muhiima oo loo baahan yahay waanu soo dhaweynaa had iyo jeer bulshadeenu waxa ku badan dadka warxuma tashiirka dad badan baa waxay yiraahdaan shirkadda Telesom ee adeegan leh iyo dahab
saad yeedaan sidee ayay ugu shubaan lacagta qaar baa waxay fidiyaan propaganda ah in la samayn karo ama la abuuri karo lacag taa waxaanu u sheegaynaa bulshada somalilan inaanay jirin adeegan qofku lacag buu dhigtaa sida banka lacagta loo dhigto lacag buu dhiibaa xaddii la-eg lacagtaa ayaa lagu shubaa xaddigaas unbaa lagu isticmaali karaa markuu doonana uu hadduu u baahdo uu iyadoo kaasha u qaadan karaa waxaa naga dhexeeya macaamilo marka banka dhexe uu ugu tago korjoogis iyo maxaan ku dhahdaa hubin intaa oo jeer baan u tagnay waxaanu soo hubinnay in lacagta wareegaysa iyo lacagta ay gacanta ku hayaanoo saacadday u baahdaan oo aan ku tilmaami karo demand deposit بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد madaxda sharafta leh halkan isku timi wasiirka waqsaha iyo isgaarsiinta agaasimaha guud ee bangiga dhexe gudoomiyaha shirkadda Telesom iyo boardka Telesom iyo kasoo qaybgalayaasha shirka aad iyo aad baan idin salaamay waxaan ku salaamay islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa runtii xafladan qiimaha badan leh ee shirkadda Telesom ay qabatay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa runtii waxa aan ugu soo dhaweynayaa ugu weyn waxa weeye waa amar qaadashadii runtii ama amirtii ay soo saartay dawladdu dhagaalugulaanshaha ay u sameeyeen iyo xilligii ay weli ku taagan yihiin awaamirtii ay dawladdu ay isla afkarteen shirkadaha waaweyn iyo xukuumadda aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa maadaama habsami socod fiican ay weli ku jirto sida ay noo sheegeenna waad artaan stebiska qaarna waa fuleen qaarna way fulayaan qaarna waa horumar cusub oo bulshada ku soo biirtay in shilinkii Soomaaliland britaba lagu dhaqmayo waa runtii waa mid aad iyo aad u wanaagsan oo farxad leh waana ku hambalyeynaa shirkadda Telesom shirkaduhu runtii waa weynay labaduba si fiican bay u socdaan wadareedda habshiilla iyaguna sidaas leeg baan iyaguna ka filaynaa ay noona sheegeen oo si fiican bay iyaguna wadaan sidaas darteed Telesom waan ku soo dhaweynayaa awaamirtaas ay dhagaalugulaanta fiican ay u sameeyeen iyo horumarka ay bulshada u horseedayaan waayo qodobadii waxay noogu dambaysaa 13 bisha si ay kuwa horeba u fuliyeen ayaan iyagana ka filaynaa in ay fuliyaan oo 13 ay bulshada oo dhammi ay wada hirgeli doonaan cidii kale iyagu markaa meela oranaya malaha ma fulin doonaan iyaga u taala laakiin waxaan leenahay Telesom inteed ka dhimanna baqa galiya dadka waxaan sheegaa yani ku beeniya dadka propaganda laba socda ee leh wali uma dhaganugla waxaan jecelahay in 13kana ay noqdaan arrin istaagta oo in si fiican u fusho oo dadka oo dhammaan ay ku diirsadaan wixii beenaalina iska hadhaan qodobada runtii labada qodob ee noo harsan inaan 13 bisha waxba lagu iibsan karin la isu diri karin wixii 100 ka yar waa wixii 100 ka yar dollar ah inaan 13 bisha wixii ka dambeeya aan la isu diri karin waxna lagu iibsan karin oo ah taqoday ballanqaadkeena ka harsan yani waxaan ka rajeynayaa inay fusho runtii farxadna way noo tahay waan kalsooni ku qabnaa inay fulin doontaan haddii alla yiraahdo anigoo ka mid ah guddiga madaxweynuhu magacaabay inay wax ka qabtaan hoos u dhaca qiimaha shilinka iyo sicir bar ka dhashay isla markaana wasiirka isgaarsiinta iyo technology-ga waxaa maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in shirkadda Telesom ay ku dhawaaqdo ama ay daahfurto in ay fuliyeen marka koowaad go'aankii ahaa in wixii ka yar $100 loo bedelo shilin oo marka hore dollar buu ahaa shilin loo bedelo kaasoo muddadii ay loogu talagalay ay ka hadhsan yihiin muddo 9 maalmood ah marka iyadoo waqtigaan gaadhin in shirkaddu ay
ku dhawaaqday inay diyaar u tahay fulinayso waa arrin aad iyo aad u soo dhaweeyno waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin guddidu waxay 3 shay bay ahayd inay ka soo hawl bixiso amar koowaad hoos u dhac ku yimid qiimaha shilinka iyo isticmaal yarida shilinka laftigiisa iyo sicir bararkii ka dhashay labadaasi inay ka soo qabato marka sidii maalin hore aanu sheegnay go'aamadani waxay wax badan ka qabanayaan in uu kor u kaco isticmaalka shilinku marka loo bedelo lacagtii mobile money-ga marisay inay noqoto shilin waxay kor u qaadaysaa isticmaalka shilinka marka shirkadda Telesom qaybtii kaga soo hagaagtay way ka soo baxday aad baan ugu mahadsan yihiin dad badan waxay u fahmeen in la joojiyay lacagtii mobile-ka dhex marisay ama telefoonka marka lama joojin laakiin waxa loo bedeloon lacagteen leenahay oo ah Somaliland shilinka in lagu isticmaalo hadday tahay zaad iyo hadday tahay dahab labadaba marka way ku mahadsan yihiin shirkaddu waxa kale ku dartay oo aan laga codsan in lacagta ku shubashada oo lacagta lagu hadlayo iyadana ay shilin ka dhigeen marka taana aad baad ugu mahadsantihiin waxaan leenahay waa hawl cusub oo ku soo kordhisay waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada kale ee waddanka jooga in iyaguna sidaas oo kale ka hawl galaan sidii kor loogu qaadi lahaa lacagta waddanka oo shilinka ah oo adeegyada ay u gudbinayaan bulshada ay ku daraan in shilinka maaragtay ay ku lagu isticmaalo hadday tahay barnaamijyada hadday tahay goobaha waxbarashada haddii ay tahay goobaha kale bixinaya adeegyada kala duwan hadday tahay shirkadaha maaragtay transportka iyo dadka qaadaya waxaan ugu baaqaynaa dhammaantood in ay kor u qaadaan oo isticmaalaan oo ay dadka ugu gudbiyaan adeeg sida shirkadda Telesom maanta ay samaysay adeeg ku fadhiya shilinka waxaan ku soo gabagabeynayaa go'aamada guddida ka soo saartay sicir bararku go'aamadani go'aamo hordhacay haayeen maaha kuwii ugu dambeeyay kulli go'aamo kala soo socda kuwan laftigoodana waa la qiimeyn doonaa suuqa waxay ka taraan iyo sidoo raadayaan way soconaysaa qiimeyntoodu marka bulshada waxaan u sheegaynaa in aanay hayn wax mar kaliya soo baxay ay noqon doonaan go'aamo mar walba sixid iyo qiimeyn lagu sameyn doono maantana waxay shirkadda Telesom ka soo baxday qaybteedii waxaan u sheegayaa bulshadu ciddii ay ugu jirtay dollar sida hore loo sheegay lacagtaas kama lumayso meel kale kama marmayso qofku waxay ugu jiraysaa maaragtay zaadkiisa ama accountkiisa ama xisaabtu lahaa laakiin hadda waxay noqonaysaa inuu laamaha leedahay shirkaddu intuu tago lacagtii uu kala soo baxo oo uu isticmaalo tii ahayd inuu ama qof kale u diro ama wax ku iibsaday iyadoo dollara baa meesha ka baxday marka waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkadda Telesom waxay maanta fulisay ujeedadii ay ka lahayd dawladdu oo ah in lacagta telefoonada dhex maraysa ay noqoto lacag ku shaqeysa shilinka Somaliland marka 9 cisho ka hadhay 9 cishana waxa weeye bulshada hoos u diyaar garowdo bisha 13keeda na way fulaysaa sidaa la sheegayna lacagta lagu shubanayo ama lagu hadlayo ee shilinku iyaduna waa hawl fududeyn kale oo ah in qofku inaan u baahanba dollar inuu ku shubto hadday tahay hadal iyo hadday tahay internet labadaba marka shirkadda Telesom aad bay u mahadsan tahay ganacsatada waxaan baaqaynaa inay maaragtay iyaguna qaadaan tallaabadaas oo kale bulshadana waxaan leenahay si guud lacagtu waa lacagteennii waa astaan qaran waxay la mid tahay calanka waxay la mid tahay astaanta qaran aynu isticmaalno aynu maaragtay wax walaynu wax ku kala iibsanaa inoo ahaato shilinka marka taasaan ugu baaqaynaa aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsanyahay wasiirku shirkeennii jaraa'id oo maanta aynugu talagalnay daahfurka adeega shilinka Somaliland lagu rajaaj garaysan karo ku hadalka iyo internetka iyo faahfaahino kale oo runtii la xiriiray intaas ayuu nagu dhan yahay waana mahadsantiin dhammaantiin ka soo qaybgalayaasha macaamiisheedan runtii waxaan ugu bushaareynaa laga bilaabo berito in shilinka Somaliland ku iibsan kara kaga rajaaj garaysan karaan ku hadalkooda iyo internetkoodaba wassallallahu